أنا dad xaasidiina iska jir marka live soo gasho ku xaasid inta kale aan kula hadlaynin so dadkaas la hadlay xamaas u soo galnaa ka hadlay waxay ahayd maamada way dhiban tahay maamada maamalyo la leeyahay aan waa u naxay aad iyo aad baan uga xumay waxa ku dhacay so please dadka sida xun lacagta ku deedeeya lacag si xun ma lagu deedeeyo wada fiican lagu helaa wada xun lagu ma helo tryna wada fiican ku yeelan kartid inaad ka hadli kartid wax kale ina u samaysan kartid YouTube ina hidii dhaqanka Soomaaliyeed ka hadashid culture ka hadashid family kaaga wareyso xaafadiina wareyso la gal ina YouTube Soomaaliyeed prank samee wax adigu waxa jeceshay samee laakiin qof ceebtiisa ina share gareysid how u isticmaaleen social media how isticmaal qof walaalka oo kala ama hooyada oo kala your sister xaaska oo kala walaasha oo kala u isticmaaleen inaad ceebteeda use gareysid ina ceebteeda si share gareysid ina dad kale soo bandhigtay tiraad waxaan soo dhigtay way qawnay wuu kanay way kanaysa de qawnta you can do nothing waxa qaban kartaa ma jirtid you can do one piece thing wax qaban kartaa ma jirtid wax ma qaban kartid gacanta inta ula tagtay mar weyn ma u gelin kartid afka inta ula tagtay afka ma adkaan kartid laakiin halka wada kaliya inoo banaa waxay tahay inaan ducayno oo Ilaahay u barino in Ilaahay caafimaadkeeda soo celiyo Ilaahay qof عبدالرحمن محمد مختار حسن عيب مكالي بليز وحاركا ولا لدد صادقة يا قمامو حنوساني سعشا كستو دهايا وحنايد سماي سوا اسقاوي سوا اسكنس واحد سمين كرتاد مجرتي you can do nothing واحد قمان كرتي مجرتد أنا وحن قمان كرا مجرو تلافون كاغاد كدوز وحما قمان كرو فيسبوك شير جرانيس وحما قباني محا قباني إن الإله وجهي سلاه ارتكتد ود إله وبردد وقف مسلم وقف أدون وإن أدو عايسد inaad u ducaysid wax kaaga haboon ma jirto intaad sii sheer gareyn lahayd farax Yurubta jooga farax Mareykanka jooga aad u sii sheer gareynaysid xaliimada kale meesha jooga u sii sheer gareynaysid ceeb qof walaalka is dhaafsanaysaan waa wax laga xishooday in qof walaalka oo kale cadow la sheer gareyso dad waraaba u sheer gareysid markaas tire markii YouTube ka Soomaali lagu qoro maamadaas kala soo bixi ku kala soo bixi waa ceebtan sii fogeynaysa laakiin maalintan wax qurux badan sii faa'iideyno wax like aan ka helay oo adigu qof ahaantaada u bogtay markaad sheer gareysid ayaa wax horta adigu soo hubisay oo adigu soo sheer oo naftaada ka soo sheer dad la sheer gareeya lama sheer gareeyo waxa just maskaxdaada iska soo boodsiisay ku tira waad ka heshay waad jeceshahay so please xushmada laga shaqeeyo aniga waan isla gabar gardaran waan hay maxaabada uga hadlayaa laakiin dumarnimo uga hadlayaa hooyanimo uga hadlayaa oo hooyadii oo kale oo walaashii oo kale waa habartii oo kale qof dib in loo geysto especially markay dumar tahay dib ahaanta qofku uma jeedo inuu dib ahaysto oo dibka lagu eeganaysa laakiin markaan arkay qof saas oo kale oo laga faa'iideysanayo ama maskax iyo aqli loo adeegsanayo in laga maskax badiyo ma jeceli waa qof dhibaataysan qof dadka sii sheer gareynaya waxay ka aqli badan tahay 10 sano ayadaada dhalanaysa ka aqli badan tahay qurux joojicid maamaliyun markay mara xirato waad aragtay sa u qurux badan tahay sa u eegtaa waad aragteen marka quraanka akhrinayso aniga dhanba emotional kala awsaag wow marka quraanka akhrinayso waad aragteen marka dadku wax la sheer gareynayso waad aragteen please waa walaasha oo kale waa hooyada oo kale waa habaryarta oo kale waa xaaska oo kale si ceeb inaad u sheer gareyso ha isku dayin YouTube-ka wax fiican baad ka sheer gareyn kartaa Google isticmaal wax kale isticmaal laakiin ha u sheer gareynin inaad lacag ku heshid in lacag kugu soo heyto waxaan leenahay hidii dhaqan qurux badan oo mara حاسمه لو دا هدي رقم كليه ayaadan ka soo dhaxbixi karin hadaa ina lacag sameeyay rabtid hidii raqamka Soomaaliyeed ka hadal hooyada ayaa baaba joogay Soomaaliya Ethiopia meesha doonay ka yimaadaan hooyada ayaa baa hidii raqamka Soomaaliyeed weydii hidii raqamkaaba ka far badan ba waxaad weydiisaa diinta muslimka noqo qof ina diin baratid ajirka qof dadka la sheer gareeya YouTube-ka si fiican baad ku sameeysan kartaa ama noloshaada ka hadal ama dadka waxa barata la sheer garay oo cisho kasta u soo dhig ama aad cunto karinaya xirfadaada la dadka la sheer garay ha la sheer garay qof kale wuxuu soo dhigtay ama iska leeyahay ama ceeb qof kale inaad sii faafisid Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku ku sheegay qof hadaad aragtid dhibaataysan inaad Ilaahay ula barido Ilaahay oo Nabi Maxamed quraanku sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay wuxuu dhahay qof markaad wuxuu sheegnaysid dadka dhaxdiisa dad ugu sheeg ha ugu dhex sheegin intaad gooni waa loola hadlaa waa loo sheegaa waxa la dhahaa sidaas kuma fiicno markaas aadna ajir ku imanaya isla hadlay laakiin marka 39 qof dhaxdooda ku tirayd wax waalan baa tahay wax qaawan baa tahay qofku wuxuu ku leeyahay anugu noloshayda ka xun yahay qofku filim kale uu meesha keenaya
wuxuu dhayaa ka noloshiisa ka xuyeeya yaa akhi dhaafi so wuxuu ku arkay wax noloshiisa dhan ka soo horjeeda isagu daahir saxan buu soo arkaya adiga cali qaldan buu ku ardaya so waxaan isleeyahay please dadka inaad isbedeshiin isku daya wax fiican baa laga hadlaa wax fiican baa dadka lala sheergareeyaa wax quman baa dadka lala sheergareeyaa hala sheergareeyo qofku inuu dhib haysto in dhibkiisa ha sii sheergareeyo oo Soomaaliga khariban hala sheergareeyo qof dadka inaad wax ceebiso wax fiican la sheergareeyo adiga 100 ceebood leedahay baa la asturi haddaad hal qof ceebtiisa asturto ceebooyinkaaga dhan buu Ilaahay asturi Ilaahay baa adigu qoran Ilaahay baa ku dhigay qofkan ceebti muslimka dadkiisa bilaadan ku qarinaya marka xataa wacdiga dhageysta waxa weeyaan ka hadlaysid qof hada marka qof u ducaysid inta meel fadhiisatid salaad ka baxdo qof walaalka oo kala u ducaysid malaa'igo ayaa ku ducaynaya tahay wacdiga dhageysta oo diinta ka hadla wax kale ku mashquula ilaahuma daahirada xildhibaanada loo dooranay ku mashquushaan Puntland ku mashquula laandada ku mashquula saakin qof muslim oo walaasha oo kala oo gabar oo dhiban xuskeedii hadda ma joogo salaani aaminsan xamdaanta xuskeedii ma joogo qalbigeedii ma joogo niyadeedii ma joogto inaga dhanba inoo aragtaa dad khariban oo iyaduna daahir xalima saxan bay soo aragtaa please xushmad baa la isku dara waa hooyada oo kale hooyada mar ibtiinad qaan hooy maxaa sidan ku galay baadii hooyada aroos tagaysa dad aragtid oo maraq kala xirtay hooy maxaa ka qaldan baad ku dhigay لو ويلاش ما سنقانا هويدا عاوا هبنتي أروستك إزدار تحط لحسن هوي حاجة وصعتها maxaa ku dhibay ashadaaka iska naar wax hooyada bad ay tuwaanini markaad gabar kale aragtid ceebteeda waad u ordi tii kala heestayo tana isqawsiyo aan kuwa sii sheergareynay hal waxaan ku darsanayaa fikrad kale ah waxaan ku darsanayaa fikradaas waxay tahay war soddon familkiina oo dhan bay ka qurux badan tahay hadda iyadoo isqawsay iyadoo mar xiran wan in yar kama soo istaagi kartid meel حتى قف level la soo qaadi karo mid dadka si sheergalay waxaan isleeyahay waa dad boqolkiiba ay ka qurux badan tahay qurux Ilaahay uu siiyay maskax Ilaahay uu siiyay qofka haduu dib haysto ma la sii jiito waxan waxa u sameeyay wuxuu ugu badhacay oo duceeyay isaga sheergalay 39 jeer ba soo sheergaleynaysi kana dhacay kana sameeyay kala sameeyay maxaa idin daba dhigay shaqo kala qabsada hadii isqaawsi who cares hadii ladan tahay who cares hadii dhimato Ilaahay u naxariisto soo shaqooyin kala banaan ee shaqooyin kale barta oo wax kala sameeyo oo kor u socda dadkiina laguma soo dhex noqdo hore baa loo socda dadka Soomaalida tareen maxaan dadka dhan soo dir waa wiilashan khad aad moodid dad hadda dunida u soo dareeray jinac dunida loo soo dareeriyay aad moodid war tareen dib u socda wadatina tareen hore u socda raaca oo dadka raaca kul waa 40 sano wixii dhacay kaadisiin ana reejiir adeerkaaba uugay dila uuga cunay hebla isqaawisi hebel baa taagnaa laba iskuursaday dadka lagu mashquulo shaqadaada la qabsada qofka saas oo kale markuu dhibaataysan yahay waa la caawiyaa garab eegan waxa isleeyntan maxay ka hadlaysaa kurka madowee Soomaaliyeed aanu keenay luqad garan waagaay af Soomaaliga baan garanay isakay caaya عايدين وهربا ناد عايدين أنا قدام بيا بدي سيريسين so please حشمد إناد سكودايا حشميسان دتك إسكودايا please وقف والده وقف دبن إلهي الله بريء أنت سيدك يجتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتكنا دنا عاينا شقة وعمان الله إسكسي شقيسته وأنا ودي شقيسين أي شقية عن الله أنا دت سكتي الميدان عايدين ودي شقينسين شقة وعم بعد الله دتك إناد عايدينا شقة عصمها شقة حلوة يعني شقة في عام وكلا دايدا قف دباتيسن oo ku si farxaysin oo si wadatin oo si haysatin oo soo jiidaysin ani waan ka xumahay maxaa ani aan uga hadlayaa ma ba aqaan magaceeda hadii la ilaahay caawi ku dilaysaa iska ilaali ma garanay cid ay tahay ee waxaan uga hadlayaa waa qof dumar ah waa qof muslim ah waa qof hooyo ah waa maanta qaar bay hooyo u tahay qaar bay wiilkeeda markaad maanta 10 jeer ku soo sheergalaysin wiilkeeda ma jeclaanayo waxaas kale inuu arko kaysadooda u tahay ma jeclaanayo walaasheed ma jeclaanayso please isku day inaad isfahantaan inaad dadka ceebtii aad la sheer gareynaysin joojisaan haddii iyadu dhibaato haysato dhibka lagu qofku markuu dhibka haysto ma lagu farxo qofka walaalka laba jeer waa lagu farxaa laakiin markuu dhibka haysto laguma farxo waa la garab galaa so isaka caaya and thank you so much ku caayada ka shaqaysto